agaasimaha guud ee ciidamada BMBF Mudane Cabdirabbi Cabdisamed Maxamed ayaa kormeer ku tagay garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso oo dhismihiisu meel gabagaba marayo kaasoo ay dowladda Puntland dhismihiisa ka taageerayso dowladda isu taga Imaaraadka Carabta. Garoonka cagaaran ee kubadda cagta magaalada Boosaaso oo dhismihiisu marayo meel gabagaba waxaa dhammaad ku dhow wajiga koowaad ee dhismaha garoonka kaasi oo ka kooban qaybta tarabuunka oo qaadi doonta 3,000 oo qof, qaybta VIP-da oo iyaduna qaadi doonta 100 qof, 2 qol oo hool dhar bedelasho iyo musqulahoodina wata, dhismaha qaybta jiimka iyo banaynta baarkinka gawaarida. Sidoo kale wajiga labaad ee dhismaha garoonka oo bartamaha bisha 8aad ee sanadka 2024 bilaaban doona isna wuxuu ka kooban yahay dhismaha garoonka cagaaran oo ka kooban 105 mitir iyo 65 mitir, nalaynta garoonka, qaybta beddelka ciyaartoyda iyo macallimiinta, qaybta gargaarka degdega iyo saxaafadda. Dhinaca kale mas'uuliyiinta gacanta ku haysa garoonka ayaa agaasimaha uga warbixiyay heerka uu marayo dhismaha garoonka, waxa uu qabsoomay iyo qaabka ay shaqadu u socoto, waxayna agaasima Cabdirabbi uga mahadceliyeen sida mas'uuliyaddu ku jirto oo uu markasta u heelan yahay fududeynta shaqada iyo qorshe walba oo lagu dhammaystirayo dhismaha garoonka. Ugu dambeyn agaasimaha guud ee ciidanka BMBF ayaa mas'uuliyiinta iyo shirkadda gacanta ku haysa dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso kula dardaarmay ilaalinta tayada iyo farshaxanka dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso.